doodisha oo ku soo socda taliya adiga iyo guduudo gadaal idin dhigana su'aalo gaar ah idin qoran bilaal soo dhawow dooda ku soo dhawow waa u jeedaa wax meeshan ka dhacaya maxaad aaminsan tahay qurba joogta in dalkan ku soo kordhiyeen labada meel baan waa u dhaxeeyaa kuwana online ka kala socda kuwana waxa way si caadi ah aan u wada joognaa caawa horta waa lagu qaxay qoladii qurba joogta ahayd ana horta waa u cudur daarayaa inta badan kuma wada yaaci doono laakiin waa gaari doonaa dadka inta fadhiyo ee qurba joogta lagu sheegay intooda badan waa dadka horta igala qayb qaata aniga ka bilaal ahaan markaan barnaamijyada samafalka iyo waxyaabaha wanaagsan ee soo bandhigo dadka igala qayb qaata waayo waana dadka ugu qalbiga wanaagsan markii Soomaalida loo fiiriyo taas haddaan ka soo gudbo caadiyan noloshii caadiga ahayd farqi kale ee u sii gudbiyeen hadda sida uu lahaa agaasimaha guriyihii nagu qaaliyeeyeen shaaxi waa nagu qaaliyeeyeen iyo waxyaabo fara badan hadda ka bilaal ahaan waxaan deganahay kaba soo qaad gubadleeyaan deganahay gubadleey waxa ay dejino waxay tahay inaanan awoodin inaan $500 aan ku dago guri halkan ku yaalo taasna ayaga saameyntooda geystay haddaan u soo gudbo su'aashayda ah maxaad aaminsan tahay inay wadanka ku soo kordhiyeen waxay wadanka ku soo kordhiyeen nin saaxiibkeeyo abaabul la yiraahdo wuxuu yiraahdo ka hor intay caag biya soo qaataan ee lugays inta ka bilaabaan lambar 4 ilaa sayidkay caag biya ku socdaan subaxii markay soo kacaan ilaa habeenkiina jab oo waxay cunayaan uu yiri mala waxa asay oh my god tan bariga ku leeyihiin marka waxyaabaha ay soo kordhiyeen horta waa dhaqan dooris habeen hore ugu dambeysay waxa wadanka ee keenay waxay ahayd gabdho iswalwalaaqaayo oo dharkii inta laga wada dhigay mid dhinac ka jeexan mid garbaha suufaf ku sidato mid dhinac dhan ka jeexan intay soo wada safeen ee waxay yiraahdeen waxaad soo bandhigaysaan dhar dhaqankii dooriyeen gabdhaheena qurquruxda badnaa jirkooda banaanka u soo dhigeen wiilkaas halkaas fadhiyo wuxuu yiri waxaan soo kordhinay labis nooma soo kordhin annaga wiligeena labisan jirnay waa ka labis qurux badan nahay waa ka nolol fiican nahay waa ka caafimaad fiican nahay ayaga halka ayagu ay nagu soo kordhiyeen caafimaad xumo labis xumo dhaqan xumo marka waxaan leeyahay waxay soo kordhiyeen waxaana dadka iyo dalkuba aan faa'iido u ahayn tayo xumadooda waxaad ka dareemaysaa oo aad ka arkaysaa markuu hoggaan uu ka yahay nin qurba jooga dalka iyo markuu nin qaran jooga uu dalka uu hoggaan ka yahay labaduba waa ka dareemaysaa hadda maanta wadanka waxa ka socdo waa la arkaa horumarka ballaaran ee ka socdo waxyaabaha la soo kordhiyo 3 sano kor ama 2 sano kor wadanka wixii ka socod jirina waa la socdo marka tayaxumo fulaynimadii ay shal nagala tageen maanta nagula soo laabteen hal mid aan ku darsanaa hal mid ku darsana waxay yiraahdeen annaga markaa dibadda joogno lacaga far badan soo dirnaa lacagaha ay soo diraan waa dhulkii iyo hantidii idinkani lagu bixiyay dahabkii ee diyaaradaha iyo doomaha ni lagu saaray ayaa kiskis u bixinayseen ee wax aad soo kordhinayseen meesan jirin marka waxaan leenahay lacagihii ni lagu investigareeyaan ni laga soo nasay wax kale naguma bixin waa ma santahay aad u ma santahay